tan iyo intii ay bilaabantay qayladhaanta abaaraha saameeyay Somaliland gaar ahaan gobolada galbeedka ayaa ay maamulka heer gobol iyo heer degme ee Gabiley iyo guddiga abaaraha gobolku ay had iyo habeen heegan ugu jireen sabata bixinta shacabkooda ay macaluusha iyo tiifta abaartu ay ku habsatay isla markaana ay la qaybsanayeen dhibaatada iyo xanuunka abaarta saameysay dad iyo xoolaba iyaga oo meel kasta oo ay joogaan ugu gurmanayay gaarsiinayayna baadiyo biyaba haddaba iyaga oo aan weli ka daalin gurmadka ay u fidinayaan dadkaasi ay abaartu saameysay ee xoolihii ay dhaqanayeenna ay ka leedeen ayaa waxa ay sidoo kale deeqa raashina gaarsiiyeen qaar ka mid ah deegaanada iyo tuulooyinka gobolka Gabiley sida tuulada Goray Kalabayd deegaanada looka aroorka Taysa Macalin Barkhad iyo deegaano kale oo ka mid ah gobolka Gabiley deeqahani raashinka oo qayb ka ahaa gurmadka abaaraha ayaa intii hawshaasi socotay waxa warbaahinta la hadlay maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Abdi iyo xubno ka mid ah guddiga abaaraha heer gobol halka waxaan u joognaa gurmadkii abaaraha in raashin lagu qaybiyo tuulada Goray raashinkan oo kamida raashin 2500 oo qoys raashinkooda ahaa oo ay noogu deeqeen hay'adda walaalaheena ee Qadar Charity oo inagala jooga Cabdifataax iyo saraakiisha kale raashinkaas oo shalay toole iyo maanta ilaa berri toole guud ahaan gobolka ay ka socoto qaybintiisu ayaynu imika u joognaa 75 qoys raashinkood ayaynu ku bixino Goray kullay baahida deegaanka ay abaaruhu saameysay iyo dadka ay abaartu saameysay iyo hayntu isma leeka haddana kolba sidii loo jabo ayaa loo dhutiyaa inta abaartu jirtaba gurbaduun baynu wadnay maalintii ay hay'ad islaamiga sida maxaan ku raaqada Charity ay wax naga soo gaaraan maalinta dadkeena qurbaha jooga ay wax soo bixiyaan maalinta dawladdeenu wax soo bixiso kolba sidii wax loo helo ayaynu isu gaarsiinanay marka la eego baahida gobolka taariikh population gobolka ku nool waxa weeyaan wax weyn baa u dhaxeeyo 100 in ka badan bay abaartu saameysay laakiin waxaan uga jeednaa si nafqaybsiya in wixii dadkii haddana maartay wixii la gaarsiin karo la gaarsiiyo waxaan u leenahay wali xaaladuna waa taagantahay ilaaha raxmaanka waxaan ka rajaynayaa inuu wax badan roobkana waa qaybo ka daay qaybo ka mid ah gobolka hadda biyo dhaamis ka jira xaqiiqada dadkiina soo gaarsiiyay iyo hay'adiina soo gaarsiisay iyo guddigeennii qaranka ee abaaraha iyaguna way ku bahadsan yihiin wixii inaga soo gaara mar walba inaynu intaana ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa waxaanaynu ku tala jiraa inaynu mar walba wixii annagana soo gaaray ee maxaan ku dhahay gobol ahaan ina soo gaara ummadeena inaynu sidii kolba aanu niraahno way marba meeshii ay ku haboontay aanu isleenahay markaa halkaas u daran ayuun baanu dhigaynaa wixii aanu helno noo soo dhaweeyeen sida waxaan ay nagula shaqeynayaan anagu waxaan idin keenay ilaa 100 qoys raashinkeedii waa taa arkaysaan degaysa idinka iskale idinka ayaa qaybsanaya sidaad u kala darantiin waan u qaybsanaysaan anagu mas'uuliyadiina saarnaa waan keenay waan ku soo wareejinay wixii saacadan ka dambeeya qaybinteeda iyo qaybsigeedu mas'uul waxa ka ah odayaasha uqaasha iyo dhammaan dadka deegaanka degan aan baan idinkaga mahadcelinaynaa sidoo kale iyaguna waxa gurmadkani ka mahad celiyay dadka baahan ee ay abaartu ku habsatay abaaraha waddanka saameeyay waa loo ogyahay cid waliba meel way jirjiri hashiisu ugu wada jirtaa baladigeena dhiba hashiisu jirtaa gobolka Gabiley maayirka xigeenka barasaabka hay'adaha waxaan oo keenay waan u mahadnaqaynaa Zakariya Nuux Ibrahim telefishinka caalamiga Raya TV gobolka Gabiley